soo dhawaada mar kale daawadayaal haddaba maxamed maxamuud cade oo soo akhriyey warbixintan oo uu dr michael milstein ku daabacay wargeyska iyo dihood ahronood ayaa qadka ku jira barnaamijkana ila falanqeynaya. maxamed, maxay yihiin waxyaabaha ka dhashay heshiiskan oo warbixintu ku bilaabanaysaa? toddobaadkan dad badan waxa ay si saxa u barbardhigayaan Israa'iil markii ay weerartay Daahiya weerarkii hadda ka hor ay ku qaaday Septembertii lasoo dhaafay waddanka Qatar. labada xaaladoodba howlgallada Israa'iil fulisay waxay ahayd ka badbadin walwal weyn oo caalami ayaa jira, gaar ahaan madaxweynaha waddanka Mareykanka Trump ayaa aad uga walwalsan in Israa'iil ay samaysay waxaan lagu talagelin, wax karaankeeda aan ahayn oo aanan ka ahayn inay awood military isticmaasho mooyaane wax kale ma hayso. falka labaad ama labadaas falba waxa ay gobolka bariga dhexe ka dhigeen mid qaraaleysihiisa uu badan yahay, waxayna waxyeello weyn Israa'iil u geysatay danaha Mareykanka. hal sano ka hor weerarkii ay qaaday ayaa horseeday in la gaaro heshiis lagu soo afjarayo dagaalkii Gaza. toddobaadkanna waxay dardar gelisay in la meel mariyo heshiiska lala galay waddanka Iiraan weerarka ay qaaday awadii. heshiiskaas is-afgaradka oo uu saxiixay Mareykanku wuxuu muujinayaa in isu dheelitirnaan xagga awoodda ay hadda u janjeerto awooddii waddanka Iiraan. maaha oo keliya xukuumaddii Iiraan in ay samata baxday oo la isku dayay in la afgembiyo, waxa ay noqotay mid sidii hore ka xag jirsan, sida Trump iyo xubnaha hoggaankiisa madaxda u ah ay sheegeen in hadda ay Iiraan loo qaateen tahay, xoog la leedahay, dadkeedana ay yihiin dad caqli badan oo muujinaya in isbeddel weyn uu muuqdo. xaaladda ayaa laga yaabaa hadda inay hagaagto. natiijadana waxay tahay in cunaqabatayntii laga qaaday waddanka Iiraan, cunaqabatayntii oo dhan, isla markaasna dhaqaalaheeda uu xoogeysanayo. 300 bilyan oo dollar ayaa la isku afgartay in ay dib u dhiska waddankeeda ay u isticmaasho. waa gartay. isla arrimaha Iiraan, arrinkii nuclearka Iiraan maxay warbixintu ka sheegtay? Iiraan weli waxaa ka go'an inay barnaamijkeeda nuclear ka shaqaysato, mana cadda wax laga yeelayo. waxayna u muuqataa in ay muhiim tahay in xataa uraniumkii ay tayagelisay halkii ay ka soo wareejin lahayd inay sii haysanayso. waxaa jirta khatar ah inay dardar geliso inay hub nuclear samaysato. dooda la xiriirtay gantaaladeeda oo Netanyahu uu ku tilmaamay in ay jiritaanka Israa'iil khatar ku tahay. Trump ayaa dhowaan asna waxa uu sheegay waa cadaalad darro in dalalka qaar ay gantaalo haystaan halkana ay Iiraanna wax gantaalaha haysan. guud ahaanna gantaalada caalamka u burburinayaan. waxaa kaloo ayadana aan meesha ka maqnayn, Iiraan waa diiday inay saaxiibadeed ka tagto. Iiraan si xoog leh ayaa loo duqeeyey, laakiin weli saameyn weyn ayay gobolka ku leedahay, gaar ahaan waddanka Lubnaan. shacabka Iiraan ayaa bilaabay inay garwaaqsadaan in ay been noqotay Mareykanka iyo Israa'iil wixii ay ku andacoonayeen. xukuumadda Iiraanna hadda aad ayay isugu kalsoon tahay, waxa ayna rabtaa inay aargudato. Iiraan waxaa laga yaabaa in la dhaawacay, laakiin libaax dhaawaca weli waa libaax. in Iiraan ay awood weyn leedahay ma aha halkudheg. waxa ay jebisay 2 dowladood oo nuclear ku habaysan, sida uu hadalka u dhigay afhayeenka
wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Iiraan Ismaaciil Bage. tanna waxay qayb ka tahay Trump inuu aqbalay in marinka Hormuus la furo. Trump shaxdiisan ayaa Iiraan waxa uu ka dhigayaa inay hadda saaxadii ku soo noqoto. hadalkaasna wuxuu ka hor imaanayay wax allaalihi wixii uu sheegay dagaalkii inta lagu jiray. waa gartay marka sidee ayuu heshiiskani u saameynayaa dagaalka waqooyiga ama furinta Lubnaan ee Xisbullah? Israa'iil waxay cabsi ka qabtay Iiraan. waxaa jira walwal weyn oo soo taraya cawaaqibka ka dhalan kara waqooyiga Israa'iil, gaar ahaan Trump ayaa waxa uu rabaa dagaalka in la soo afjaro, taasoo noqotay mid lagu tijaabinayo madaxweynaha Mareykanka. Iiraan waxay si weyn u caddaysay inaynan heshiiska kama dambaysta saxiixi doonin haddaanan la soo afjarin dagaalka Lubnaan, oo ay ku jirto in ciidamada Israa'iil ay ka soo gurtaan oo ka soo guuraan Lubnaan. Iiraan weli waxay ku sii hanjabaysaa in ay weerarkii ay Iiraan Israa'iil ku qaado Xisbullah inay ka jawaabi doonto, halka Israa'iilna dhinaceeda ay isku dayeyso in ay xaaladda ay gacanta ku dhigto. waxayna si cad u sheegtay inaynan joojin doonin howlgallada ay ka wada Lubnaan, ciidankeedana ay kala bixi doonin. arrinta culayska ah waxa ay noqonaysaa waxa uu Trump go'aamin doono inuu amar ku siin doono Israa'iil inay soo afjarto dagaalka waqooyi ka socda, iyo sida Netanyahu uga falcelin doono xaaladan adag ee danaha Israa'iil in lagu difaaco waqooyigeeda iyo saaxiibtinimada Mareykanka isdul saaran, iyo inay awood sii lahaato weli maadaama agabka ay kaashato uu yahay kii Mareykanku uu siiyey, iyo inay sii wadi karto inay saaxiib la sii ahaato dowladda Mareykanka. halka Trump uu ku dhawaaqay heshiis inuu la galay Iiraan, isla markiiba kuma dhaqaaqin in dagaalka Lubnaan la soo afjaro, laakiin waxa uu si kale u dhigay in uu dalbaday in dhaqanka Israa'iil ay wado inay hagaajiso. taas muhiim ma aha in dhismayaal la burburiyo oo diyaarado droonisa markii lagu soo weeraro Israa'iil inay guriga burburiso muhiim maaha. Iiraan iyo Xisbullahna labada waxay ku qanacsan yihiin kuna kalsoon yihiin guusha labadooda isku xiriirisay. waxa ayna soo bandhigaysaa xaalad hadda Mareykanku uu ku qanacsan yahay in uu xakameeyo Israa'iil. waa gartay dhinaca kale maxay Xisbullah iyo Iiraan ay ka aaminsan yihiin xaaladda hadda jirta? waraaq oo toddobaadkan xogeyaha guud ee ururka Xisbullah Naciim Qaasim uu u qoray afhayeenka baarlamaanka waddanka Iiraan Maxamed Bagar Qalibaf ayuu ku sheegay in uunan haynin erayo ku filan oo uu ku mahadceliyo sida uu ula dhacsan yahay Iiraan taageerada ay u fidisay ururka Xisbullah iyo shacabka Lubnaan. isla mar ahaantaas ururka Xisbullah waxa uu caddeeyey in aan lagu noqon doonin xaaladii Israa'iil ay weerar ku qaadaysay Xisbullah intii u dhaxaysay 2024 iyadoo aan jawaab laga bixin. waxaana muuqata in tiro badan oo reer Lubnaan in la barakiciyey, haddana ay bilaabeen inay guryahooda kusoo noqdaan. waxaadna moodaa deegaanada ay kusoo noqonayaan weli waxaa ku sugan ciidamada Israa'iil, oo ay dhici karto khatar ah in la isku dhaco, arrintan ay sii murjiso. waa hagaaga sidee ayay dowladaha carabtu u arkaan heshiiskan? adduunka carabta waxaa ka soo foqday neef markii heshiiskan la gaaray lagu xakameynayo
sida hadalka loo dhigay waalidii Maraykanka oo si xumaysay xaaladda markii Trump uu ku hanjabay inuu weerarayo waddanka Cumaan. waxayna la dhacsan yihiin in ay fashilantay Israa'iil, saameynteedana ay sii yaraanayso. wadamada carabta gaar ahaan kuwa gacanka ayaa khasaare xoog leh kasoo gaaray weeraradii Iiraan ay ku burburinaysay saldhigyadii Maraykanku uu ku lahaa wadamadooda. waxayna hadda garwaaqsadeen xukuumadda Iiraan inaynan burburi doonin. waxa ayna hadda dhiiri gelinayaan inay wada hadal la yeeshaan, siyaasaddii horena wax ka bedelaan. Maxamed Abu Rumaan oo cilmi baare u dhashay waddanka Urdun ayaa sharaxaya in dadka wax la fagura ee carabta in Iiraan danaheeda ay ku saleeyaan. ma aha arrin xamaasada, waa arrin suran ideolojiyad. waddan carbeed oo awood u leh ma jiro inuu istiraatiijiyad cusub gobolka ku soo rogo Iiraan la'aanteed. wuxuu u baahan yahay marka inuu ka fekero inuu xiriir iyo wada hadal la yeesho waddanka Iiraan. waa gartay. marka yaa ku guulaystay isbedelada cusub ee gobolka? dhanka kale, xaaladii colaadeed maadaama laga baxay, gobolka waxaa jira 3 waddan oo horumar weyn ku tillaabsaday. Pakistan ayaa ugu horeysa oo adkaysay mowqifkeeda in ay xulafo tahay, dalalka carabta la tahay, iyo iyadoo saameyn weyn ku yeelatay gobolka bariga dhexe si aan hore loo arag. Qatar oo xulafo labaad ay la tahay, oo iyadana xoojisay mowqifkeeda dhexdhexaadinta ahaa. saameynta ay ku leedahay madaxweyne Trumpna miro dhal ay noqotay toddobaadkan. waxaan ku faraxsannahay in aan la shaqeyno, wuu yiri Qatar. intaana wuxuu ku daray in Qatar ay $1 trilyan ku maalgelin doonto waddanka Maraykanka, sida madaxweynaha Maraykanka hadal ku dhigay. Turkiga ayaa asna ka faa'iideystay xaaladaha dagaalka, oo asna mowqifkiisa aad u xoojiyey, oo ah awood weyn oo gobolka jirta. waxaanoo dhan waxa ay muujinayaan in isbeddel oo muuqdo loo arko in Israa'iil wixii ka horreeyay dagaalka xaalkeeda siduu ahaa marka gobolka bariga dhexe la fiiriyo, iyo isxulafaysiga istiraatiijiyadeed ee u dhexeeyey carabta iyo Israa'iil, inuu isbeddel ku yimid marka laga gudbo waxyaabaha dhacay ee ugu dambeysa heshiiska Iiraan lala gaaray. wax hubaala ma jiraan, laakiin xaaladdu waa mid aad u nugul. dokumentiga Maraykanka iyo Iiraan ay saxiixeen ayaa 60 maalmood kadib waxaa looga gol leeyahay in lasoo afjaro dagaalka, dhinacyadana ay wada hadal rasmi ay bilaabaan. cid damaanad qaadaysa ma jirto in heshiiskani in uu miro dhal noqon karo, gaar ahaan marka ay timaado arrimaha nukliyeerka iyo in dagaal lagu noqdo oo ah khiyaar aan suuragal ahayn. gaar ahaan ciidamada sirta ee waddanka Maraykanka ayaa digniin ku siiyey madaxweyne Trump toddobaadkan in Iiraan ayna ku tala jirin inay wax tanaasula ka samayso galka nukliyeerka marka wada hadallada bilowdaan. waa hagaaga. arrimihii Israa'iil haddaan dib ugu noqono, maxaa weli khatar ku ah Israa'iil mustaqbalka dhow? Israa'iil ayaa la filayaa inay wajahdo culays aad u weyn, gaar ahaan marka la fiiriyo awaamirta Maraykanka ka soo baxaya oo ah in laga baaqsado tillaabooyin ka dhana waddanka Iiraan iyo weerar lagu qaado Lubnaan, taasoo ay la socdaan dalabaadyo loo soo jeedinayo in ay ka soo baxdo koonfurta Lubnaan. David Mokoviski oo la taliyo u ahaan jiray
xogayihii arrimaha dibadda John Kerry ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyay in Trump dalabaadkiisa ugu weyn ay tahay Israa'iil inayna qaadan tallaabo waali ah oo lagu yareysanayo heshiiska xabad joojinta Iiraan lala galay haddii Xisbullah ay joojiso weerarada in ay aad hoos ugu dhigto howlgallada ciidamada Israa'iil ee deegaanka Lubnaan waxaana dhib badnaan doonta Israa'iil in ay sheegato in ay nafteeda difaacaysay waxaa la garwaaqsaday xasaasiyadda ay xaaladani leedahay iyadoo Maraykanka ay doorasho kusoo socoto xilliga dhexaa madaxweynaha Maraykanka ayaa laga yaabaa in Netanyahu ka dalbado in uunan dhul ballaarsi samaynin oo ku sugnaado meelaha hadda uu joogo laakiin xaaladdu Israa'iil kuma xumo oo keliya ee xaaladdu waxay tahay midba marka si dambe sii xumaanaysa ee Israa'iil go'aansato inay isku taagto madaxweyne Trump gaar ahaan haddii ay isku daydo in ay eedeymo u jeediso inuu Maraykanku taag daran yahay marka la fiiriyo heshiiskan lagana adkaaday waxaa laga yaabaa in la maqli doono toddobaadkan weliba dadku u dhow Netanyahu iyo warbaahinta Maraykanka in ay ka hadli doonaan hadalla aan u fiicnayn dhegaha Israa'iil iyo Netanyahu. waa gartay maxamed maxaa ka dhalan kara marka isku dhacaan haddii uu dhaco isku dhacaan waxa uu noqonayaa waxyeello weyn oo istiraatiiji ah oo horseedaysa in dowladda Maraykanku ay hoos u dhigto taageerada dhaqaale iyo midda siyaasadeed waxaana laga yaabaa inay hoos u dhigto taageerada Israa'iil siinayso marka laga gudbo inay xulafo dhow ahaayeen waxaana xoogeysanaya sawirka ah in Israa'iil ay tahay dowlad faraha laga qaada oo adduunka xasilooni darro ka dhalinaysa waxaa dhici karta in khiyaarkaasi uu yahay mid xanuun badan caalamka oo dhanna waxaad moodaa in hadda uu Israa'iil ka soo horjeestay casharkii laga bartay Oktoobar 7 ayaa u baahan in xooggii la isticmaalayay joogtada ahaa in wax laga bedelo cadowgaaga oo dhan ma tirtiri kartid waxaana u baahan in la fahmo in qar iska turnimadan ay ku dhammaan doonto masiibo waa gartay maxamed ugu dambeyntii qoraaga muxuu ku soo gabagabeeyay warbixintiisa waxaa suuragal ah in la fahmo mararka qaarkood inay muhiim tahay in la doorto khiyaar aad u qaraar markay ugu yaraato heshiiskan Maraykanku uu Iiraan la gaaray wuxuu xaqiiqsanayaa in Iiraan nukliyeerkeedii khatarta ka soo horjeeday la yareeyo wadaxaajoodyo dhabana oo isdaba joogana lagu saleeyo sida koonfurta Lubnaan ee Xisbullah ee looga joojin lahaa dagaalka Israa'iil ku wado iyo wadaxaajoodyada Lubnaan lala gelay in la xoojiyo marinka Gaza oo ururka Xamaas ayna hadda gacanta ku hayn marinka Philadelphia ayadana wadaxaajoodka lagu daro khiyaarkan u dhaxeeya nolol dagaal oo joogto ah iyo culays joogto ah iyo burbur ku dhacay Israa'iil ilaa ay laga soo bilaabo ama wixii ka dambeeyay Oktoobar 7 waa in lagu soo baraarugaa hadafyo cadcad la xadidaa dagaalkan iyo awooddan lana fahmaa muhiimadda ay leedahay in xabad joojin la galo lagu soo kabto aragti fiicanna mustaqbalka loo sameeyo sidoo kalena la qiimeeyo guuldarrooyinkii dhacay dagaalada Israa'iil gashay oo dhan